All the martyrs of old, 70 of them, or more than 70 of them are buried inside this graveyard. This graveyard is about... No. This is the only graveyard for those who were martyred in the Battle of Uhud. All of those companions who martyred here are buried inside this place, okay? You have the square block there. It's said to represent the Prophet Sallallahu Hamza and his cousin Abdullah bin Jash and Mus'ab bin Umayr. 3 of them are said to be buried here. And over there you have the rest of the companions. The master. أمرك رسول صلى الله عليه وسلم وهاد وسود دقيقة الدين لا جرجر أي حد النبي صلى الله عليه وسلم سحاب هو أدو أدارا وش هيك نولا نبي محمد ونولي هاي ولا بيقول يا عيسى before me waxaan sidoo kale waraysi la yeelanay intaanu ku sugnayn buurta Uhud dhalintan iyo waalidiinta qaar ka mid ah waraysiyadoodiina sidan ayuu u dhacay way marka ugu horeysa magacayga Faadimo Ismaaciil aw aadan way Faadimo waxaad soo martay Maka waxaad soo martay Madiina maanta waxaad joogtaa Uhud maxaad dareemaysaa wallahi waxaan dareemayaa inaan dadka adduunka Ilaahay buqcada uu ku nool yahay inaan ugu nasiib wanaagsanahay ama aan ugu ayaan badnahay runta marka la doono because yani meeshan oo kale qof kasta ma yimaado waxa yimaado qof uu Ilaahay jecel yahay marka nasiib wanaagayga anigu waxaan ka mid ahay dadku Ilaahay jecel yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku rumeeyo waayahay bal nooga waran magaalada Madiina aad timi maanta Uhud soo booqatay Quba oo aad soo martay xabaalihii markaa saxaabadooda ag taagan tahay maxaad kororsatay wallahi waxaan kororsatay faa'iido way aad iyo aad u fara badan talabaadna waxaan jecelahay qof kasta oo muslina ama qof kasta oo maxaan ilaahdaa jecel inuu Ilaahay u soo dhawaado inuu maxaan ilaahdaa meelahan oo kale aanu ka maqnaanin uu dadaal aad iyo aad u fara badan inuu dalkan yimaado oo nabigu calayhi salaatu wassalaam dhibaatada uu soo maray diinta islaamka iyo maxaan ilaahday dagaalka uu galay iyo dhibaatooyinka waaweyn uu u soo galay inay dadku ay la socdaano وقف والبا محان إلهداي وحنا نبغى وصوم مري وأركا محان إلهداي سيدو دين تيسا ويقين سناده قيمة نمدا يكوتشوكتو هوي waxa kula socday carruurtaadii oo kula yimi oo iyaguna kula cimraystay marka kula soo maray Madiina kula jooga bal barnaamijkan dhalinyarta waxbarashadooda dumarka oo wax loo akhriyo sidii kula muuqata wallahi runta marka la doono xamladan aan maanta anigu soo raacay horta Ilaahay fadligiisa ugu yaraan anigu hadarto markii toddobaad aan imaado maxaan iraahdaa Ilaahay fadligiisa xamlada fara badan oo aad u kharash badanna waan soo raacay laakiin runta marka la doono xamladan waxaan dareemayaa inay leedahay waxyaabo gaar ah oo aanan kuwa kale ku soo arkin waxa kamid ah marka ugu horeysa dadkii oo afkii ku wada hadlaya talabaad dadkii oo aad dareemaysid inaad dadkaaga aad dhex joogtid oo aanad qof shisheeya ahayn afkii hooyo oo caruurtii lagula hadlayo talabaad halkan waxa jooga dad khaas ah oo af Ingiriisiga diintii si wanaagsan dadka ugu macnaynaya oo caruurta yaryar ee mesela magaalada Yurub ku soo dhalatay ee aan afka garanaynin af Ingiriisiga xabad ugu sheegaya habeenkiina muxaadarad u dhigaya aroortiina quraan u dhigaya marka runta marka la doono xagga dhalinyarada aad iyo aad bay ugu faa'iido badan tahay marka waxaan waaninayaa hooyo kasta oo caruurteeda jecel
oo doonaysa carruurteeda maxaan idhaahdayey inay heer wanaagsan ay galaan inay carruurteeda ay xamladdan soo saarto because dadka halkan jooga ee xamladda ku shaqo leh ee mas'uulka ka ah waa dad aad iyo aad u fiican carruurtana siday carruurtooda ayaynu u dhaqaalaynayaan carruur badan baa joogta aan hooyadood iyo aabbahood la soconin laakiin qolada xamladda leh ayaa aad iyo aad u dhaqaalaysa sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum magaca Khalid Abdurrahman Jaamac Khalid Abdurrahman Jaamac Khalid London baa ka timid sidee dareensantahay sidee dareemaysaa adigoo haatan ku sugan goobtan weyn ee Uhud waxaan dareemayaa halkan iminka Uhud waxaa mari jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabiyiinta oo nacam waxaan leeyahay inamada ingiriiska iminka jooga waxaan odhan lahaa anigu next summer ama cumrada soo socota insha Allah inaan halkan maadaan weeyaan waayahay dhammaan daawadayaal haatan sida aad u jeedaanba waxaan la taaganahay dhalinyartii cumrada ku timi dalkan Saudi Arabia haatanna joogta magaalada Madiina al-Munawwara maantana markaa booqasho ku yimi Quba iyo waliba buurta Uhud oo aad u jeedaan oo maarta xagga naga xigta haddana sidoo kale waxaan ag taaganahay qubuurtii marka ay ku aasnaayeen saxaabadu waxaan waraysi yar oo gaaban ka qaadi doonaa qaar ka mid ah dhalinyarta magacaaga saddex walaal waxaan magacayga leeyahay Axmed Cabdi Maxamuud shilfid baad ka timi waayahay walaal maxaad dareemaysaa adigoo soo cumraystay ma ka soo maray haatanna Madiina yimi waxyaabo maartay meelihii islaamku soo maray oo dhan jooga maxaad dareemaysaa wallahi waxaan dareemayaa nimco aad iyo aad weyn waa faa'iido aad iyo aad u weyn waana wallahi aad iyo aad baa dhalinyartu uga faa'iiday dacwad badan iyo magaraysa dhulkii xaramka ee barakaysan ay joogaan oo ka faa'iideysanayaan waxaan la kulanay culimo badan waxaan naloo jeediyey midoo kale casharo faa'iido fara badan leh oo ay dhalinyartu aad uga faa'iideen oo loo turjumay waxaan ku booridaynaa waalidiinta dalka jooga UK ama meelaha kale ee adduunka inay aad iyo aad uga faa'iideystaan waqtiyada fasaxa say u keenaan carruurahooda oo ay dhulka gaalada ka soo kaxeeyaan oo ay keenaan waqtigan fasaxyada insha Allah waayahay casharada aad qaadataan maxaa ka mid ah adigoo u hadlaya dhalinyarada casharadan qaadana waxaa ka mid ah bacda casarka waxaa la akhriyaa cashar baa la akhriyaa bacda cishahana waxaa la akhriyaa cashar bacda subaxana waxaa la akhriyaa cashar marka dhalinyarta aad iyo aad baa loogu faa'iideeyaa dumarkana waxaa loo akhriyaa bacda duhurka ayaa loo akhriyaa casharada waayahay su-aasheeda ugu dambaysa maxaad odhan lahayd dadkii aad kaga timi Sheffield ama guud ahaan UK ama caalamka muslimiinta dadka ku nool maxaad odhan lahayd waxaan odhan lahaa fursaddan waa fursad aad iyo aad u qaaliya marka waalidiintu inay carruurtooda keenaan waqtiyada fasaxa oo ay ka faa'iideystaan janiskaas oo dhulka khayrka leh waayo waxa laga yaabaa in badan inay dadku isbedelaan oo halkan markay yimaadaan iimaan iyo taqwo ay ka helaan oo iimaan iyo taqwo ay ka helaan oo carruurtii midoo kale dhulka loogu taaglaa in insha Allah biidnillah laga yaabo in isbedelaan